السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوسو هذه أديك أبو جروا يا جرنا ولا شيء هذا وما تصنت هاي وحان مركب ورا لما أنت قف كستوماس وكفر يعني سلامان ما أنت مناسبة أنا أوجب له وامد ماركينو محوها تاريخ مقوله waxaan dareemayaa bariyahan inaan ka maqnaa saaxadda Soomaalida laakiin hadda ma arkino waxa waaye ciyaariyahan adoo garoonka soo galo wuxuu u baahan yahay bas intuu isku leenayo waxaan rabaa marka hore inta aanan taariikhda dib ugu naqanin waxaan rabaa inaan si gaar ah u salaamo safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya konsulka أقاسم عبد النور أقاسميه وراء مدحتويدا قدومياشا رشيد قدومي حمدي اليرد كله أو سياسيين بعض السبورتيا وحنوم علينا كل هذه أنتريو قفنا كتير كرنا جرو وهو ذا يجعل سجاري سلامين وحارب إن كل هذا مرة مو عداني اللي هذا وحاول جدا ما أنت جدي ماشى لسه بندقي وإنت بدن وجدي أورك سبيسي ومد سومالي كجرواي ها لحدي سنة هذا حاول يجوا على فرسنا لحسنا أيام جدي جالس كجري قف أرمها بلشة كسر أيام جرك لنت هذا جدارا وصون نقندونا waxaan rabaa abwaanadii maanta meeshan soo istaagay if oo gabiyay abwaanada xaaji baraadir oo wax badan jiri asigana hees iyo kulli isku daray wax badan oo wanaagsan ay tiriyeen wax badan oo aan ficil la fiicnayn ayna way tiriyeen intaas ficil ay sheegeen haba u badnaadee abwaanada xaaji baraadir annaga sameynay oo Soomaali ah awooyaasheen iyo hooyayaasheen markii ay xurriyad ku dagaalamayeen ma aysan ahayn in aan gadaashood fidna intii dhacday aan qayb ka noqono ma aysan u dagaalamin waxay u dagaalameen in aan ku raaxaysano xurriyadda waxay u dagaalameen in oo qof kasta oo Soomaali ah meel kasta Soomaali uu ka joogo inuu si xurriyada si sharaf leh oo macluum aysan ku jirin oo aan la dawarsanaynin waxa uu maleynaa hadda abwaamaka xaaji baraadir inta uu tiriyo hadaan tiriyo waxa uu maleynaa maskaxdeena wax u sii dhimaysaa xaqiiqadii hawshaas la qabtay oo habeenkii maalin naf loo huray oo dadkii meesha joogana la iska celiyay looma sameeynin in aan muxuu ahaa meesha gaarsiino waxaan rabaa saddex arrimood inaan sheego inta maanta xaaladda aan ku jirno laga bilaabo waqtigii xurriyadda aan qaadanay waxaan u malaynaa 100% intan soo martay muddo ahaan inaan baakin oo ku wada qanacsanayn mustaqbalka in laga quusto ma ahan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxay uu soo dejinayay ilaahay subhanahu wa ta'ala saddex suurada ugu horeysay kamida iqra bismi rabbika alladhi khalaq qum al-layla illa qalila ya ayyuha al-mudaththir aayadahaas iyo suuradahaas waxay ahayd si adaga loo hadlay annaga waa inaan iska joojinaa in aan si naxariiso iskula hadalno sababtoo ah waxa aan sameeynay oo ficilka aan qayb ka wada naqanay wax fiican ma ahan haddii asaan u sii jirno oo habeen kastana aan ma arkin oo muxuu ahayd aan caweyno oo markii kooda luuli ay joogto meeshaan aan isku wada nimaadno waxay naqanaysaa natiijo kale nooma soo baxayso waxaan rabaa inaan ma arkin oo aan gabagabadii waxaa la siyaasiyiinta lagu soo istaagay laakiin maanta siyaasi ma ahi Soomaaliya ahay marka maanta anaga Sweden aan joogno waxaan nahay Soomaali ah waxaana saaran laba mas'uuliyad saaran
waxaa mas'uuliyadda laga saaran tahay in ciyaalkeeni aan ku dhiirino inaan tusino dhaqanka ay leenahay aniga hadda waa sanadihii ugu dambeeyey si cad u arkay Soomaalida wax badan oo lagu sheego jirtaa laakiin waxaana lagu ixtiraam waxaa ka mid ah dhaqankeena diinteena inaan maanta gabar Soomaali markay meel soo gasho ay ka shaqeyso la ogyahay gabadhaas inay Soomaali tahay marnaba aan laga shakinaynin waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waagi hore kaftankeyga aad u badnaa maanta caawa meesha waxaa laga sheegay Ilhaan Macallin aniga oo ururka isbahaysiga gudoomiye ku-xigeenka saaxiibkay habana caawa uma jeedo gudoomiyey ahaa mashruuc oo helo ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed guddiga qaarkood inta badan way fadhiyaan aniga iyo habana waxaan noola xil saaray inaan raadino qof Soomaali ah oo ku habboon howlahaas inuu qabto kulanay waxaan soo qabanay aan soo ishaarnay guddiga u keennay Ilhaan maalinkaas dareenkii waxay tusinayeen qof wanaagsan diin leh oo ma arkino muxuu ah hogaamin wanaagsan la inay tahay caawa aad ugu faraxsanahay inaan Soomaali weeygiida oo Sweden laga aasaasay aad gudoomiye ka tahay oo aad howshaasna ma arkino sii wadid hore adiga u sheegtay ma arkino muxuu ahaayay intii ku garab istaagtay laakiin aniga si gaar ah ugu faraxsanahay inaan saas sameeyo waxa ku rabaa inaan u mahad celiyo bahda sportiga waxaan u maleynayaa Real Flabore abwaanka magaalada hadda gudoomiyaha ka ahaa uu joogay oo ku soo gudbay toor u gudbin sidoo kale Yaasir sportiga radadkii Real Flabore soo tababar kamid ahaa dhammaan waa mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaan meeshaan Soomaali week markii sii wado abwaan marka xaaji banaadirna la sama tabixiyo أنا كوكي سما تبحث السلام عليكم ورحمة الله